بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كلن hore waxaynu kaga soo warranay axkaamta ciidka iyo salaada ciida iyo aadaabta la rabo qofka muslimka inuu ilaaliyo. waxaynu kulankan oo kooban ku soo qaadan doonaa waxyaalaha munkaraadka ah ee diinta khilaafsan ee ciidka dhexdiisa dhaca ee la rabo dadka muslimiinta ah inay ka digtoonaadaan. ciidku waa cibaado ka mid ah cibaadooyinka muslimiinta. farxadaynu farxaynaa waa cibaado, salaada la tukanayaa waa cibaado, isqurxinta la isqurxinayaa waa cibaado, labiska la labisanayaa waa cibaado, qabayska la qabaysanayaa cibaado ah. waxaa oo dhan waa cibaado weeye. isu soo bax iyo isu imaantu waa cibaado. marka maadaama ay cibaado tahay waxaa la rabaa in laga dheereeyo macaasida, dembiyada iyo waxyaalaha aan diinta ilaahay ogolayn. waxaa ka mid ah habeenada ciidka in magaalado dhan muusig isqabsado oo gaari walba muusig ka baxayo oo meheradaha muusig laga shido oo la yiraahdo ciidkii baa loo dabaaldegayaa. sax maaha. muusigada iyo heesuhu waa xaaraan haddii ciid lagu jiro iyo haddii la sooman yahay iyo haddii xajka la joogo iyo haddii masaajid ilaahay lagu jiro isku sibay xaaraan u yihiin. xaaraantinimadooda waxaa sii weyneynaya ayadoo muslimiintu ay cibaado u cibaadaysanayaan oo ciidkoodu cibaado yahay in muusiga iyo balaayo iyo heese lagaga dhex daro. sax maaha. dadka dhalinyarta ilaahay ha ka baqaan. waxaad moodaa habeenkaas shayaadiintii lasoo furfuray baaba fooda ku qaadatayba. qofkii galabta maqhribkii soomanaa ee afurayey ayaa waxaad arkaysaa fiidkii markii la yahay waa ciid isagoo gaadhigiisii muusikadu cirkaa marayso. war ninkii maanta soomanaa ee 30 maalmood soo socay miyuusan ahayn? marka waxaad moodaa shayaadiinta inay durbawo dafeen. marka arrintaasi waa khalad la rabo in muslimiintu ka digtoonaadaan. waxaa ka mid ah ikhtilaadka rag iyo dumarku isdhex galaan oo la isdhex boodo, ama garoonka ciidkee la isugu imaanaya ha ahaato ama suuqyada kale ee laga adeeganaya ha ahaato, inaan wax kala soocaniba jirin oo rag iyo dumarkii saa isu dhex boodayaan ayaduna sax maaha. shareecadeennu waxyaalahay xarimtay waxaa ka mid ah ikhtilaadka rag iyo dumarku inay isdhex galaan ajaanibta kale ah. marka ayadana waxaa la doonayaa inaysan dhicin. waxaa ka mid ah dumarka xaggooda in gabdhihii ayagoo qaaqaawan oo aan asturnayn oo isi soo udgiyey oo cadar iyo wax isku soo shubay ay suuqa ku soo fagaasaan. ayaduna waa munkar aad u weyn weeye. gabadhii muslimadda ahayd laga yaabo 30kii Ramadaan inay soo soontay oo ay taraawiix tukanaysay oo ay cibaadaysanaysay, habeenkii ciidka marka la gaaro inay isqaawiso xijaabkii tuurto, in ay maaragtay raggii dhex boodo, inay isi soo cadriso. waxaasi wax ilaahay raalli ka yahay maaha. wax ilaahay raalli ka yahay maaha. waa arrin khaldan. xataa waxaa la faray markay masaajid aadayso oo salaad iyo cibaado aadaysaa la diiday inay cadar sii mariso oo la diiday in iyadoo qaawan baxdo. maxaad u malaynaysaa iyadoo suuq aadaysa oo meeshii shayaadiintu isugu imaanaysa u socota oo abqadul biqaaci ila Allah u sii socota? maxaad u malaynaysaa? in laga digtoonaada baa la doonaya. waxaa ka mid ah arrintaa ku dhow oo aynu waalidkana ku baraarujinaynaa, habluhu markay ciidayaan oo dharka ciidka gadanayaan waxaa la doonayaa dhar diinta ilaahay waafaqsan in loo iibiyo oo aan gabdhihii la qaawin. gabadh qaangaadh ah ama qaangaadh ku dhow ama qof weyn oo dumar ah inay iibsato ku ciido dhar aan jirhkeediiba asturahayn oo ay qaawan tahay oo kuwii nebigu ka sii dego yidhi kaasiyaatun caariyaat. waa dumar dhar xidhan haddana way qaawan yihiin, jannada urteeda heli maayaan, gelina maayaan. rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam inay kuwaa noqdaan gabdhaheeni sax ma ah. marka waxaa rabaa waalidiintuna inay ilaahay uga baqaan, gabdhuhuna inay ilaahay ka xishoodaan baa la doonayaa. waxaa ka mid ah waxyaalaha khaldan oo tahay in la iska ilaaliyo in dhalinyar rag iyo dumar ah oo ajaanib kale ah ay wada safraan oo la yiraahdo waa ciidkii oo aan dalxiisaynaayo, dalxiis baan u soconaayo, meelaanu tagaynaayo, sawiraanu soo galaynaayo. waa gabdhiyo wiilal isma qabaan oo meher isuma hayo, ehelnimo kama dhaxayso, ama qaraabo guud ha ahaadaan ama asxaab ha ahaadaan. sax ma aha. waa wax diinta ilaahay waa wax diinta ilaahay khilaafsan oo aan waafaqsanayn weeyaan. waxaa ka mid ah oo aynu u dambaysiinaynaa waxyaalaha khaladaadka dhaca waxaa ka mid ah in lagu xadgudbo cuntooyinka iyo dharka la iibsanayo. qofku intaasoo dhan oo kala duwan iyo intaasoo dhan oo qaali ah
waxba waxaas faa'iido weyn kuma laha dhar qurux badan oo fiican oo adigu dookhaaga iibso lagu diidi maayo laakiin waxba ha ku xadgudbin waxa aad ku xadgudbisay tirada badan masaakiinta iyo fuqarada si oo ku taageer ehelkaaga iyo asxaabtaada laga yaabaa kuwa aan ciidi karin inay ka mid yihiin ku taageer maalinka ciidka waxoogaa qoysaska iyo xaafadaha in loo ballaariyo cunto fiican loo sameeyo waa wax wanaagsan laakiin aysan xadgudub iyo israaf keenin oo iyadoo dadka muslimiinta hareerahaagii baktiyayaan aad intaasoo cunto oo hadhow la qubi doono aad samaynin iyaduna waxyaalaha wanaagsan bay ka mid tahay waxaynu ku gabagabeynaynaa ciidkeenu waa cibaado macsiyada iyo xumaanta iyo dembiga aan ka ilaashanno wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu